أبوان هوري عرف وين كوشيغاي ودنتي دالكيغاي عارونتي دالكيغاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خيارتها هو النقد ونيساي وعد كوسو دواتان برنامج كارا وعد كديارناي حافظة دار السلام oo kamida xaafadaha cusub ee ku soo kordhay xaafadaha magaalada Muqdisho waxay ku taala duleedka magaalada Muqdisho meel 8 kilomitir iyo 200 oo mitir oo magaalada Muqdisho u jirta waa xaafad sida aad arki kartaan loo dhisay qaab casri ah oo la jaan qaadaya hanaanka casriga ah ama caalamiga ah waxa dabcan aad daawan doontaan xaafadan iyo qaybaha ay ka kooban tahay iyo adeegyada ay bixiso iyo sidoo kale waraysan la yeelan doono maamulka xaafadan Dar es Salaam barnaamijka anigoo ah Jaamac Ahmed ayaa idin la socodsiin doona saaxiibkay guduudana dhanka kaamirada iyo farsamada ayuu ka saacidi doona daawasho wanaagsan xidmadii abwaan hore xaraf weyn ku sheegay uduntii dalkaygay xaruntii dadkaygay xidig nuurayaate xidmadii abwaan hore عرف وين كوشيغاي ودنتي دالكيغاي عارونتي دالكيغاي wadadana aad arkaysaan waa wada isku xiri doonta xaafadda Dar es Salaam iyo degmada Yaaqshid gobolka Banaadir waxaana la rajeynayaa inay wax weyn ka tari doonto ama ay fududeyn doonto isu socodka degmada Dar es Salaam ama xaafadda Dar es Salaam ee cusub iyo sidoo kale degmooyinka gobolka Banaadir sida aad arkaysaan waxa la saaray laami قروح بدن أو هم تارجينا إنه واحد يكتر دورة يسوع كا دقموي كا ياقشيد أما داينيره يو سكحر دورة حافظة دار السلام يا عصام لا وش ولا حمري راهي رميو ديواتيو وجدرن بكاهي وجدرن بكاهي حمري وجدرن بكاهي xaafadda Dar es Salaam waa xaafad cusub oo dhawaan laga hirgeliyay magaalada Muqdisho waxay dhinaca waqooyi kaga beegan tahay garoonka ciyaaraha Stadium Muqdisho ee jidka warshadaha waxayna masaafo ku dhow 8 kilomitir ay banaanka ka tahay magaalada Muqdisho waa deegaan loo dhisay qaab casri ah oo lagu tilmaami karo nooceeda tii ugu horeysay ee magaalada ama dalka laga hirgeliyo deegaankan cusub ayaa waxyaalaha muhiimadda dheeriga ah u sii yeelaya waxaa kamid ah qaabka loo naqshadeeyay goobta oo istaraatiiji ah iyo ishaybsiga dadka ku noolaan doona booqashaan ku tagnay xaafadan cusub oo daaranayd barnaamijkan ka diyaarinay ayaa markii aan marayno degmada Yaaqshid waxaan cagta saarnay laami cusub oo isku xiri doona xaafadda Dar es Salaam iyo degmada Yaaqshid ee gobolka Banaadir inkastoo qaybo kamid ah laamiga uu dhismihiisu socday laamigan ayaa sida daawanaysaan waxa uu yahay mid cusub waxaana markaad ku socdaalaysaa dareemaysaa safaraad u wanaagsan wuxuuna laamigan cusub sahlaya isu socodka xaafadan iyo degmooyinka kale gobolka Banaadir
waxyaalaha sida gaarka kuu soo jiidanaya ayaa waxaa ka mid ah in laamigan sidan u dheer oo la dhihi karo waxa uu ku dhow yahay laamiga ay dowladda turkigu saartay jidka Maka al-Mukarrama inay hirgelisay shirkad maxalli ah oo ah bangiga Salaam ayna muujinaysaa in shirkadaha gaarka loo leeyahay ay fulin karaan mashaariic sidan u weyn. waxaa sidoo kale aad ogaanaysaa in jidadka magaalada oo dhan ama badiba laamigan la saari karo oo weliba shirkadaha maxalliga ay fulin karaan waa haddii dadku ay ku wada baraarugsan yihiin adeegyada danta guud. laamigan ayaa si weyn ugu faa'iideeyay dadka boosaska ama dhulka ku lahaa deegaankan oo qiimahoodu kor u kacay. halkan aan taaganahay waa argada laga galo xaafadda Daarasalaam ee duleedka magaalada Muqdisho. dabcan waxaa idin muuqda magaaladii xaafadda Daarasalaam ayaa halkan idin ka muuqda. xaafadan guda geli doonaa balse aan idinku soo gudbino muuqaal dhammaystiran oo ku saabsan xaafadan iyo balqaabka ay u dhisan tahay. waxaad sidoo kale aad aragtaan laami cusub oo xaafadda isaguna soo gala oo ilaa iyo magaalada Muqdisho xiriirsan. marka waxaan idin soo gudbin doonaa حفظتي مديني حراني يا رير مدن حتى اللي ذا قروحي عمر بلي يا كاران. waxaan sida aad aragtaan hadda galnay xaafadda Daarusalaam waxaana abaarnay masjidka jaamica xaafaddu leedahay oo markaasi salaadii jimcaha lagu jiray. dad aad u tiro badan ayaa ku tukanayay masjidka waxaana sida aad daawanaysaan uu leeyahay baaki waasic ah oo baabuur badan la dhigan karo. intaasi kadib waxaan guda galnay inaan booqano goobaha diyaarsan ee hadda ay xaafaddu leedahay. xirta sheekha weyliyo warta nabad loo xiray sayidkiyo xariir yaane huruwa isa badan ceelka markan soo xasuustaba xadday jarayse xawataaka sayidkiyo xariir yaane huruwa isa badan ceelka markan soo xasuustaba xadday jarayse xaafadan ayaa waxaa ka dhisan dhismooyin aad u qurux badan oo isugu jira dabaqyo iyo fiilooyin qaarkood la goglay. xaafadda ayaa leh adeegyada nololeed iyo khidmado dhammaystiran sida koronto iyo biyo joogto ah, masjid jaamica, isbitaal weyn, goobo laga dukaamaysto, iskuulo isugu jira hoose, dhexe iyo sare. waxaa kaloo intaas dheer oo ay xaafaddu leedahay garoomada lagu ciyaaro, goobaha madadaalada carruurta, jardiinooyinka iyo jidada aad loo qurxiyey. السلام عليكم. وعليكم السلام. هذا المقعة؟ سارة عبد الكريم. سارة حاجات كتير بدك ماشي دقن بعد كم تايم سوا وصوت الحيس دك. ضلحيس. حافظة كتير. والهذاك. وياه محد رمي سا مركز هالكن تبي. نشاط بضم. واطن محاكم إذا وحيالها تكهش هالكن يلا. وحي عجب قليو. أي محاكم إذا وحيالك عجب قليو. يفوق. فرصة. وياه. يوحى مده. وياه درينك هو أدو في عين سما. وش ذي؟
ويا تو ما سنتادين هيا هذا adiga magacaaga مرب أدر باقي دفتي magacaaga ana ku haynay بيلا محمد حسين way leila dadka halka degan baad ka mid tahay mise waxa weeyaan waa soo dalxiis tagtay أوسط الحستة عبدك كتير على عدال هرواني هروان كتير way waa sida dareenkaaga وفي عين درينك ayo ku imanaya السلام عليكم وعليكم السلام adeer magacaaga بشار أحمد عيسى bishaar xagee ka timi عرفات carafaad baad ka timi way maxaad u timi halkan إنه ويفو بيا كعيار waayahay maxaa ku cajab geliyay markii intaad halkan timi بيا biyaha ku cajab geliyay يا waayahay maxaad dhihi lahayd dhalinyarta kale ee adiga kula midka ah ee xaafadiin iyo kale jooga وهم بلينا waayahay magacaaga عبد القادر عبد الرحمن جامع cabdiqaadir xaafadee ka timi دقمدي أخشيت ee magaalada muqdisho maxaad soo raacday waxaan soo raacay baabuur baa lagu keen ها waayahay waxyaalaha ku cajab geliyay maxaa ka mid ah marka halkan waxay ajib geliyay meesha biyaha lagu dabaalanayo wiifowga iyo meesha ciyaalka ku ciyaaraan gaadiidka BLK loo yaqaano ayaa durba isaga shaqo bilaabay xaafadan cusub iyo magaalada qaybaheeda kale waxayna ii sheegeen darawalada gaadiidku in xaafadan ay degmooyinka kale uga fiican tahay jidadka oo ah mid aad u wanaagsan qaar ka mid ah gaadiidleyda ayaan kala sheekaysay sida ay shaqadoodu tahay السلام عليكم عليكم السلام ولا magacaaga عبد أحمد waxaad ka mid tahay caasiyaasha ka dhex shaqaysta xaafada Dar es Salaam iyo magaalada Muqdisho qaybaheeda kale إلا ميزانك ilaa miisaanka ilaa Dar es Salaam isaga shaqaysta ها waayahay waa sidee shaqadu واسك عادي ay qiimaha ka waran aad ku qaadaan Dar es Salaam ilaa iyo miisaanka dhuxusha ما واسك شون كل تاني ay dadka see inta badan u heshaan ma suuq la'aan baa ku dhacda mise dadku inta badan waa yimaadaan meesha واسك عادي واي ماذا waayahay marka aad shaqada marka aad u fiican tahay عادي وفي عنتها صح waa halkan ilaa iyo miisaanka dhuxusha waa 5 واشون كنا aad baad maasan ugu dambeyntii madaxa suuqgeynta Dar es Salaam Village Fuad Ahmed Warsame ayaan ka waraystay mashruucan iyo halka uu marayo xidmadii abwaan hore xaraf weyn ku sheegay cuduntii dalkaygay xaruntii dadkaygay xidig nuurayaatee xidmadii abwaan hore xaraf weyn ku sheegay cuduntii dalkaygay xaruntii dadkaygay xidig nuur waa tahay dawadayaal haddana waxaan la taaganahay sidaad aragtaan Fuad Ahmed Warsame oo ah madaxa suuqgeynta xaafadan Dar es Salaam Village cusub ee daawanayseen Fuad ku soo dhaw telefishinka Somali News marka xigtana bal waxaad sharaxaad naga siisaa xaafadan iyo ujeedooyinkii loo aasaasay aad ma santihiin Somali News TV-ga booqashada aan soo booqateen Dar es Salaam City xaafadda Dar es Salaam City waa xaafad cusub oo laga hirgeliyay magaalada Muqdisho xaafadda markii aan tilmaamo waxay isbartiibada ama istaadii Muqdisho ka xigtaa dhanka waqooyi 7 kilomitir ay u jirtaa isbartiibada waxaana taga jid laami ah inaga u gudbi doonaa jid kale iyo bal dadku sida ay ku iman karaan marka hore xaafadan goorma la sameeyay dhismaheeda la bilaabay dhismaha waxaan bilawnay sanad ka hor aan bilawnay qorshaha qorshaysan wuxuu socon doonaa 3 sano qorshaha koowaad oo aan dhisaynana guryaha aan dhisayna waxay isugu jiraan guryo dabaqyo ah iyo filooyin sida aragtaan laamiga qaybta bari dabaqyada u talagalnay oo dhowr nooc kala ah sida soo arteen muuqaaladoodii ayagoo gogolan guryihii gurigan dabaqa hadda aragteen wuxuu ka kooban yahay 4 qol oo hurdo ah fadhi iyo khado jiko 4 musqulood iyo 2 qol iyo musqul service ah marka guryahan aragnay dabaqyada iyo filooyinka ka kooban masaambalaha hadda loogu talagalay mise waa guryaha durba waalid oo dadku way kiraysanayaan ama degaya qaarkood oo ku aragteen dad baa dalbaday oo loo diyaariyay qaarkoodna waa samballo oo waxa way guryaha sambalka ah qaarkoodna waa la dalbaday waa la diyaariyay kuwan dhismoodu u socdaa dir
xaafaddu ma kooban tahay oo deyr ma la mariyay mise waa weli way bannaan tahay oo lama soo koobin weli dhismihiyaa socda dhismaha markuu dhammaado ayaa laamiyada la leexinayo iyo jardiinooyinka iyo community gateska iyo security waxa dhan markaas ay imaanayaan markii xaafadda ay dhammaato dhismaheeda construction dhamaado way markaan sidaan arki karno waxaa jira laami dheer oo cusub oo isku xidhaya qaybihii kale ee magaalada laamigan ma idinkaa sameeyey mise waa kii magaalada ka socday ee dawladdu dhis laamigan waxaa sameeyey Salaam Somali Bank waan Dar es Salaam laamiga Dar es Salaam ayuu yimid xaafadda waxa mashruucan maalgelinaya horta waa Salaam Somali Bank company construction ka ah waa Al Buruj Construction company laamiga dhisay oo contractiga lagu siiyay company Soomaaliyeed weey oo Kulmiye General Service ah ayaa laamiga dhisaya waxaana contractiga siiyay company Al Buruj Construction company Soomaaliya qaatay qandaraaskan oo dhisayba kulli company dhisaya waa Soomaali waxaan aragnaa dad aad u fara badan oo xaafadda imanaya oo xaafadaha magaalada Muqdisho ka imanaya dadkan ma soo dalxiis tageen mise qaarkood waxay rabaan inay gataan oo waxba idinka gataan dadka dhowr nooc isugu jiraan dad dalxiis u imaanaya waxaan sameeynaa goobiyo caruurta lagu madadaalinayay dadka qaarkood information bay raadinayaan dadka qaarkoodna waxbay select gareynayaan oo waxay u imaanayaan in maalinta Jimcaha qaasatan waxay u imaanayaan dadka inta maalmaha kale shaqay leeyihiin in meesha design ka socda guryaha ka socda isbedel ka socda inay go'aan ku qaataan dadka qaarkood information dadkooda dibadda ku jiray gaarsiinayaan hadaad markaa dadka aad u sharaxdo digida bulshada ma laga heli karaa meesha waa su'aal aad u fiican marka hore waxaan ka bilaabnay dhismaha waxaan ka bilaabnay adeega aasaasiga ah waxaan ka bilaabnay ceelashii wadadii goobihi waxbarashada goobihi caafimaadka suuqii weynaa marka hore waxaan ka bilaabnay dhismaha haddii aad dhisto 100 guri oo aadan adeega aasaasiga aad dhisin wax deegi kara ma lahan laakiin haddii adeega aasaasiga uu ku dhameystiran yahay hadda 2 guri dhisto waa la degayaa marka already waxaan dhigi karnaa phase koowaad uu noo dhamaaday adeega bulshada dhanka amniga oo kale ka waran xaafadda iyo amnigeeda iyo sugideeda iyo ma jiraan ciidan amni oo xaafadda ilaaliya horta anaga Dar es Salaam waxaan leenahay security noo qaas ah oo company baan nahay security noo sharciyeysan oo qaas ayaan leenahay oo ammaanka ilaaliya xaafadduna waa iska ammaan habeen iyo maalin waa shaqeynaa waxa qabada iyo wax noo istaagan ma jiraan waxyaalaha aad rajaynaysaan xaafaddan ay ku soo kordhisaan ama nooca aad rabtaan in xaafaddan ay mustaqbalka noqoto hadda dadka u yara sharax xaafaddan waxaan rabnaa inay ka duwnaato xaafadihii magaalada Muqdisho ay noqoto xaafad design-keeda oo yahay standard adeegeeda oo yahay adeeg standard ah ay yahay macnaha meel ka qurux badan magaalada Muqdisho haddii aan lahayd jardiinooyinka haddii aan lahayd goobaha kale oo bilicda leh haddii aan lahayd hawada iyo saxada wanaagsan ee deegaankan saan rajaynayno dadku laamigan maraa xaafadda aad bay u sahlan tahay hadda dadku inay xaafadihii guud ahaan magaalada Muqdisho dhan ay isaga socdaan Soomaa waxba kama duwana xaafadihii kale magaalada ku yaallay way ka sahlan tahay maadaama jid laamiya la sameeyay way ka sahlan tahay inaad magaalada meel kale ka aado in halkaan soo aado halkaan soo aado sahlan xigmadii abwaan hore xaraf weyn ku sheegay halku dhiga Daarusalaam waa gado deegaan gadan guri oo loola jeedo inuu qofku heli karo deegaan waasac ah oo wixii uu doonayo uu ka samaysan karo